iyo qayb shanaad sheekadii Waasuge iyo Warsame sodcaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. waxay inoo joogtay oday Waasuge oo ilaa uu bunsharuur helo cashadii ka diiday Muuse oo wiilkiisa ah iyo haweeneyda u dhaxda ee caddaanka ah lana yidhaahdo Maariya. wuxuu la yaabay haweeney reer lihi sidaysan bun u dubi aqoon. wuxuu kaloo la yaabay Muuse siduu iyada dhaqankeeda ugu milmay, kiisiina uu dhinac isaga dhigay. dhowr bari kadib waatuu Waasuge habeen jimcaha fiidhoraadkii dikri ka maqlay masaajid guriga reer Muuse ku dhowaa, markaasna inta aaday goor dambe ka soo laabtay. wuxuu yimid gurigii oo ay reer Muuse ku casumeen saaxiibadood oo isugu jira rag iyo dumar. dhallinyarada Soomaaliyeed ee dumarka caddaanka ah qaba cidi kama maqnayn, qaar kalena casumaadda way ka soo qayb galeen. Waasuge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabow dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda ku hurdo. dhallinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu Waasuge ku xusuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee Jawhar uu baabuurka kala soo raaci jiray. duqii dhallinyaradii ayuu cabbaar isha la raacay, isagoo isweydiinaya torow meeshu ma tahay aqalkii Muuse. markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta soo fiirshay ku yidhi, duqa ma iska soo gelaysaa aqalka adeeg allah. markay intaasi dhacday ayaa Muuse hadalkii maqlay, soona orday markuu arkay qofka lala hadlayaa inuu aabbihii yahay, kuna yidhi, aabe maad soo geshid, maxaad albaabka u taagan tahay? markaas ayaa Waasuge shaki baxay, inkastoo uusan garan waxa meesha ka socda. duqii gudaha ayuu soo galay. Muuse ayaana dhinac socda oo uga warramaya inay dadkani yihiin saaxiibadiis, Maariyana ay casuntay. intaa ay dhallinyarada ag marayaan cayaartii sideedii ayay u socotaa. Waasugena laabta ayuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay, casumaaddu waa caynkee? culimo iyo waayeel kale midna ma joogo, ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin, horena layguma sii sheegin. waa cajaa'ibe, casuumaddanu waa caynkee? duqii waxaa u caddaatay inay casuumaddu tahay caways dhallinyaro, kadib markuu arkay siday wiilasha iyo gabdhuhu isu qabqabsanayaan. markaas buu goostay inuu dhallinyarada u jeediyo waane iyo wacdi si ay cawayska isaga daayaan. isla markiiba aadaan ayuu Waasuge ku dhuftay. allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. Muuse aad ayuu aabbihii ugu cadhooday, laakiin wuxuu sameeyo wuu garan waayey. cayaartii way joogsatay, dhallinyaradiina way wada aamustay markay Waasuge agtiisa ku soo wada urureen. Maariya dadka dhexdiisa ayay hadba dhan u ordaysaa. gabdhihii kale ee caddaanka ahaa mid waliba ninkeedii ayay su'aalo ku furfurtay iyadoo sababta weydiinaysa. markuu aadaankii dhammeeyey Waasuge wuxuu dhallinyaradii u jeediyey hadal waane ah, kadibna isagoo ku luuqaynaya masafadii wacdiga ahayd ee Sheekh Axmed Gebyow, kuna saabsanayd inuu aadanuhu ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ee Ilaah abuuray naguna hareeraysan. wuxuu yidhi, webiga kii warwareegsanaay iyo samada waaban marna aan wab soo dhihin, baxarka waalan Ilaahna waabiyey, waaga baryaaye marnaan la weyhayn, kuwa waleyl iyo waduur akhraaya ayagu way iskula waana qaateen, wejigay weese la daa'imayaan, wakhti galaa wataray dukaayaan, watar dibkiis wardiyay akhroodaan, waalidka weerar samay dhahaayaan, waaxiday weelalka naad ka tuugaan, kuwaasi waa weliyaale eebbo, wadka dibkiis darjannay waraaba.
markay intaasu dhacday ayay dhallinyaradii qaybsantayoo waxay u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay saameeyeen iyo qaar ka cadhooday si weynna uga xumaaday cayaarta laga cadqaladeeyey. wiilasha kuwii ugu xadhiibsanaa ayaa markii dambe isku dayey inay duqa xasil wax u dhacsiiyaan iyagoo dantoodu tahay inay habeenkaas barnaamijkooda dhammaystaan. laakiin wiil yar ayaa xaajadii kharribay oo inta si lama filaana hadalkii u qaatay duqii ku yidhi, adeer, annagu inta yar oo aan adduunyada joogno waa tumanaynaa, aakhirada aad sheegaysidna yeelkeed. waa suge aad ayuu weertaas ula fajacay ilaa hadalba ka soo bixi waaye. markuu xoogaa aamusnaa ayuu inta yaab madaxa la ruxay dhowr kal ku celceliyey hadalkii uu wiilku yidhi, aakhirana yeelkeed, aakhirana yeelkeed. hadal kale oo waana ah ayuu waasuga ku dheeraaday, wuxuuna dhallinyaradii tusaaleeyey inuusan ilaahay dadka u abuurin in qof waliba ku kaco wixii ay naftiisu jeclaato. markuu in badan waxyaalaha diintu fartay u faaninayey, waxyaalaha ay naga reebtayna u caayayey, ayuu ugu dambaystii dhallinyaradii u tiriyey masafo kale oo sheekh axmed gebyow uga faallooday waxyaalaha aakhire qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan faran intuu adduunyada joogo. wuxuu yidhi, rugtii qayaama haddii la roogsado, rifata naar ahna raab ka soo go'o, kuwii rogaayeyna reebi waayaan, rasuulka suubanownow ku reed maro, haddaad ka raaracsatiiska kaa rido, rabbigay weynuna raalli kuu naqan, ragow haddoo qalbi waa rafaada. dhallinyaradii quus ayay markaan ka gaartay, sidaas ayayna ku kala tageen. maariya aad ayay uga xumaatay barnaamijka habeenkaa ka dhicisoobay, aqalkeeda ayayna hoosta ka xiratay cadho daraaddeed. habeenkaa reer muuse islama hadlin, sidaas ayaana waagu ugu bariyey. waasuga qolkiisii ayuu iska seexday isagoo ciil bastiis la ah, asal ahaanna ka xun waxyaalaha ay dhallinyaradii ku kacday, sababna uga dhigaya cidabdarro ay reer muuse horseed u yihiin. subaxdii dambe wuxuu qof waliba soo toosay isagoo cabursanoo si dhib ah hadalku uga soo baxayo. kadib markii la quraacday ayuu muuse aabbihiis u bilaabay sheeko sarbeeb ah kuna saabsan waxyaalihii xalay dhacay. maariya kama qayb qaadan sheekadaas, maxaa yeelay waxay si weyn u dareensanayd inaysan isfahmi karin iyada iyo duqwaasuge. maxaa haddaba muuse iyo aabbihii isla subaxdaas dhex maray? waxay ku jirtaa sheekada qaybteeda 6 iyo 7 inagu soo fool leh hadduu eebbo idmo.